بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتو أنا وناكسن لمان أخيارتها هودي قد داوانا سعيد الكيمبا بلو البو جوكتان وقت قايدين وعناضو يسوى البو إيشا قايد داوانا يسان وحان كهالله يا بريف كو آدن حارقة سياسية عبد الرحمن عبد الشكور أين كهالله دونا هدو الله أود لي أسامحو iyo arintaas waxa sharciga dalka uu ka qabo horta waxa muhiim ah fadlan waxaan ka codsanaa inaad si share gareysaan waxa muhiim ah sharciga dalka iyo dawladnimada dalka dadka inay u hoggaansamaan qaarkiin waa laga yaabaa in aniga aan naqdinayo Cabdiraxmaan Abdi Shukuur aragtaan Cabdiraxmaan Abdi Shukuur oo ii sheeg naqdinayo Umar Abdi naqdinayo waa aragtaan in badan laakiin waxa muhiim ah dawladnimada hadii laga dhigo in reer uu leeyahay ama qabiil uu leeyahay wixiyo ayadoo sharci darro ah شرعي درو إيش اللي جود دفاعه وحام صعنايان ذاتكوا وذا قبيل دولة وأفر اللي بيحشان ذاتكي عاد فضا كود جرو ولا سول لا ولا سدلي بهاش قبيلة كوبي شبناء وحين كيري ساب بربر إكلاتك أنا وحربا خوفك موادن كا فيري ولا سوء إذن كرا ولا حري كرا لكن أديك أدو أجيدو سيستم دولة نمو حديد جبهدين أكد دورتين نيو على الشباب oo aragteen dhibaatada ay geysteen iyo dadka sida u dilayeen aan laga diiday dictatornimo maxamed siyaad barre 22 sano dalkaas dictatornimo ku soo haystay dictatornimo ku soo maamulay laga diiday qodob ay aqrinaya fadlan si shargalay anu waxa in dawladnimo ay jirto dawladnimadu waa muhiim fiiri dawladnimadu waa muhiim dawladnimadu waa waxna wada anfacayo wax halkaan waxan dhigay waa dawlad la'aan iyo burbur iyo colaad laakiin yaa diidan dawladnimadii waxa diidan xasan cali qeyre حسن على غير وكالله دوس ديدنين وحد ديدن تيم كحد ذلك معمولة يديدن قضى بقى دي شيء أو الشرعية أنا حروا إنسي في الشرعية قفك اللي قصة حلو عمر عبد الشيد ولا سوء ذي دولة دوحي أو بالفيري عقل حماده يفشل كدولة نمجرة دولة دوحي أو ذي حرلاليها جودي هذا لها إيش وحبال محكمة الله سارة إن ورقب وساقرة بالفيري يا إله كود أرشي دولتنا قبيلة كود تاجرين وحنا كود تاجرين قبيلات ديسك داف سومالي ما كشقينو xirlaaliyaha guud ee qaranka wuxuu awooday in warqad soo qoro reedi muqdisho laga sheego oo liiraada Cabdiraxmaan Abdi Shukuur waa la soo eedeeyay waa in maan la heblaayo maxkamadda uu yimaada Cabdiraxmaan Abdi Shukuur ma diidi kara maxkamad ma aaday ma dhigi karin Soomaaliya dhan waa wada arki lahayd inuu sharciga diiday in dawladdu uu yahay inaysan dawlad ogolaan ala arki lahaa in xirlaalaha guud warqad uu soo qoro oo dhira reedi muqdisho laga sheegay idaacada dawladda wuxuu dhira Cabdiraxmaan Abdi Shukuur ma la heblaayo waa in maxkamaddu u yimaada maxaa lix qof loo dilay lix dhalinyaro ah maxay u dhimatay adoo awooda Cabdiraxmaan Abdi Shukuur inuu yiraahdo maxkamad ha yimaado maxaad gurigiisa u weerartay oo dhalinyaro loo laayay ilaahay idinku dhaarshifiiriya Soomaaliya si fiican ay dhageysta dawladda waxay awooday inay tiraahdo Umar Abdi Rashiid xasaanada maxkamadda la geeyay xasaanada laga qaado Cabdiraxmaan Abdi Shukuur xildhibaan ma aha aqalka sare kama tirsano waa shakhsi waxa la awooday in la yiraahdo Cabdiraxmaan ani waxaan u arkay in Cabdiraxmaan Abdi Shukuur isku day dilo xiiso waa la rabay in la dilo hadda wallahi laakiin fiiri farmaajo waa la fashilin looyaa asina uu isfashilin looyaa wixii dhan fashil ay ku socdaan fiiri war aniga okay qodob idin sheegaa qodobka 500 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed fiiriya ani dawladnimo rabaa wallahi dawladnimo rabaa kama hadlay qabiil kama hadlay kunjiro waxaan ka hadlayaa qodobka 500 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu dhigaa qofka muwaadinka ah dacwad looma geen karo 6 maqribnimo ilaa 6 subaxnimo si fiican u dhageysiya xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 500 wuxuu dhigaa qofka muwaadinka ah ee la soo eedeeyay 6 maqribnimo ilaa 6 subaxnimo wax warqada oo dacwada looma geey karo waxa loo geey karaa dacwada aan ku sii qoran qodobka maalin cad ayaa loo geey karaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed akhri waxa muhiim ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed in akhrisid waxa loo geey karaa maalin cad qofka muwaadinka ee la soo eedeeyo haddii maalin cad uu diido qofka muwaadinka ee la soo eedeeyay waxa u tagi karo soo qaban kara ciidamada booliska Soomaaliyeed okay Cabdiraxmaan Abdi Shukuur waxa la weeraray 6 7 saacadood intuu dhaxaysa
قوم حركة عقاب صومالي موافقية إن كاس قصة قد وحي لهذا ورقط أي عبد الرحمن لوذي وحاكو قرن حركة عقاب صوماليات قف كموادنك لحظة مغرب نمو إلا لحظة صبحي wax warqado dacwadeed oo maxkamadeed loo ma geey karo oo xirlaaneed waxa qofka muwaadinka loo geey karaa oo dawladnimada rabta ay farmaajo qabiil ku taageer ama ku taageerin khayr qabiil ku taageer ama ku taageerin dawladnimada arabtu waa nooc dawladnimo waa sharci xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay lixda maqribnimo ilaa lixda subaxnimo qofka muwaadinka ah wax dacwad ah oo warqadeed loo ma geyn karo haddii qofka muwaadinka uu diido maalin cadeen loo diido warqada uu diido waxa soo qaban kara ciidamada booliska okay dawladnimada markay yaa diidan waxa diidan cid daba sacabeennimo weerartay muwaadin Cabdiraxmaan waa muwaadin dambiilu noqon kara wala soo eedan kara laakiin waxa muhiim ah in sharciga la maro sharciga in la maro aa muhiim ah firiya maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaka dadka jeclaysiiyay nimanka xal weeraray Cabdiraxmaan taageero badan u yeelay فيري مدحوينها حالي وحا أتكتي فيري يا حبر قدر إيدو دبلي رنا إيدي شيئا موقتاي لباتن حلبان الليهين لباتن إحاقا طبعا إيدو دبا كميدا وقاس لغا قيلي كميدي وقاس لغا قيلي وكميدي ياهي عبد الحكيم كبدار ترى عارف وكميدي ياهي وحتى اللي كميدتها كل وحي تاقير سنين فرماجو حالي وحي أتكتي وحي هذا مدحويني وحي دعواني أينك نصيب وحلنا مدحوينه ولا قديدي قيرنا وقديدي فرماجو وقديدي فيري مركز سياسة حمو وحبكم صنعاي وحكى الله بربرا كان الله وحكى الله وحميم الشرعية إن ضدك اسميين وعبد الرحمن إمارات العك سوقاتي هبلو كسوق وحروا سوقاته لكن قاب كان لو سوق بنا واي أنا وحكى الله يعطى قبل شذا مسحة مسوا شرع در وشرع در والدولة الدمين واي حدي عبد الرحمن قرن دمي سوها ما أنت قرن دمي سه صادق جون أو شلي لا المية أحمد جوري عندي أمر كسيسي عندي جوري حالة ويرتي كل واقع دميس دولة نيم مروان حدي عبد الرحمن عبد الشكور عمر عبد الشيد قرن دميس أي عيان إمارات عين كسوقاتين إمارات كعين كسوقاتين وحكلي توقعهم نمانك حالة وير صفة الشرعي أنا كوسو حيران إيه صفة الشرعية ور إله إذا كنا شدي حيرلاليها جودة قرنك وقد أصوص عاري لها وليه لها غير المقدس الله آخر ليه عبد الرحمن عبد الشكور أذين الله هيستعمل الهبلاية وإنه محكمة دي بلا عبد الرحمن ما سد ذكره مدي ذكرين لكن إن ضدك الله أو قفك اللي تدلو نروح نسول وين معه إني بريء منك أنا بريء كاي واحد دولة نمرة معه صومال نمرة معه ضمن اسكو ما كينيسو ضمن اسكو ما كينيسو وحاف في عن فيري فرماجو شرعي على قصة دورتي خيره وإيشك ولقصة مقعابة سفر شرعي وفرماجو قصة مقعابة برلمان كعنسي يا حسن الشيخ محمود فيري لا مرة بوشين لقا كيني ولا قيس فيري حسن معلن واحد اللبان مرصداه ولا قيس فرماجو حكا بشيقل حرلان انت وحتر وإن حسانات لقا قاداه حسن معلن وأن مرصداه واحد اللبان مرصداه وأفقام ولو كجراه سابر لقي ولا قيس معلن حرلان انت وحتر وإن لباس حسانات لقا قاداه وردي معد محمد صلى الله عليه وسلم أما فقه يهض ليه لا هلا وحبي هلا محل لقربة حسن معلم محل لقربة أو محل لقربة سابر لقي وصليبانة محل لقربة ولقي سابر لقي هلا ما أركب ولقي حسن معلم هلا ما أركب إذا كل واسد وكره وروح عن دولة اليوم ما هي الشرعية ذاتك إن قاسمانة مهمة فيري صومالي واحد رجادية وماشي عن دقي واحد على ضر وقف لو قبيل أو تشيغناي وقف كر إيش مجد الدولة إنه شيئا واحد ماشي عن اللي جوا بحث لكن هدي سومالي إيش عدالة أنا مدحوينها إن أسمناه وعدالة أنا قيراء أسمناه وعدالة أسمين عبد الرحمن عبد الشكور قيره والحمد لله ورفع لكن عبد الرحمن سوى رفتين شرعي ما وشرعي در أنت تاجر كرتملا قف أركت تاجر عبد الرحمن عبد الشكور قاب كل واحد وقف قرن دمسة وقف دولة جديدة وقف قبيلات وضع قبيالة وضع وعلى الدولة النما كشكاية قاب كنك اللي قحر الدولة النما ذي قلاف سنتاي دولة النما معها وواحد شرعي كم أحسن نك صاعي ذي نك محكمة وارن صجر إذا علىها كشك وفي عام شكله وزير كقرشنته الصومالي وها والأمر صنع ذي مشرح مدحوينه
madaxweyne fiiri in dad ay ku qaldaan dhinacyada fadhiyo lagu qaldaan wax lagu sheeg waa qalad cabdiraxmaan cabdishakuur ninka sagaalka cod ay inta cod hore adigu siiyay waay cabdiraxmaan asoo xash sheekh maxamuud u jeedo adiga kaaga hiiliyay ahilmaamin saaxiibtinimada hore ahilmaamin ha fiirinin maanta waxa taageen dalka u hogaansamo dastuurka fiiri waxa madaxda waxa muhiim ah inay u hogaansamaan dastuurka wuxuu dhigaa qofka okay cabdiraxmaan cabdishakuur shay wax ka soo qaatan okay shay qodobka ciqaabta Soomaaliyeed mar qodobka 500aad mar dacwada maalin caday cabdiraxmaan in loo geeyay warqada oo la ogeysiiyay dadweynaha oo la yiraahdo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur xeer ilaalinta qaranka soo eedeysay waa in maalin heblaayo maxkamadda u yimaada hadduu cabdiraxmaan diidi lahaa qaran dumis u ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur diidi lahaa wuxuu ahaa dowladid wuxuu ahaa nin inkaare ku dhacday musiib wara cabdiraxmaan cabdishakuur habeenka leefka soo gala saaco inkaare waa ogtiin laakiin marnara aniga sharci darro qofna kuma soo dhaweynay kuma taageeray sifaha cabdiraxmaan lagu weeraray waxay khilaafsan tahay dastuurka dalka war si fiican ii dhageyso madaxweyne si fiican ii maqal khayr oo maqal rasaare sifaha cabdiraxmaan aad ku weerarteen dastuurka dalka ma qabo qodobka 500aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu dhigayaa qofka muwaadinka ah looma geen karo warqad xeer ilaalineed ka bilowda saacada 12 maqribnimo ilaa 12 subaxnimo 12 maqribnimo ilaa 12 subaxnimo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 500 qofka muwaadinka la tuumo ama xeer ilaalinta ay soo eedeyso looma geen karo hadduu qofkaas loo geeyo waa in maalin cadeen loo geeyaa haddii maalin cadeen loo geeyo oo qofka uu diido yaa soo qabanayo ciidamada booliska Soomaaliyeed soo qabanaya ee nabad sugid isaad John inay soo qabtaan waa qaran dumis Soomaaliya waxa in leeyahay inta farmaajo taageersano inta ka soo horjeedo dhageysta ficilkii cabdiraxmaan cabdishakuur lagu weeraray wuxuu ahaa ficil qaran dumis ah waa in cabdiraxmaan cabdishakuur xoriyadiisa la siiyaa haddii cabdiraxmaan shalay u qaldanaa idinka qaladka way sameeyay lix wiil oo dhalinyaro disheen dhimatay looma baahna dad in la dilo cabdiraxmaan waxa ku filnaa in maxkamadda war ay soo saarto xeer ilaalinta war ay soo saarto laakiin sidaan lagu socdo dowladnimada ku burburayso sidaan lagu socdo mucaaradnimada ayaa kordhayso waxaan la yaabo lii sheegay waxay tahay 19 xildhibaan oo habargeeli dubla u tagtay farmaajo oo ugaas dhagay geel hogaaminayo aqalka sare ku jiro sanadka dhagay geele oo aad ogeedeen galmudug inuu dhahay dhagay geel wuxuu yiri sharci waaye xilka qaadista xeef asoo farmaajo la jira madaxweynaha la socdo oo khayra taageeray dhagay geele iyo cabdixakiin bidaar iyo xildhibaanka cabdixakiin waxay yiraahdeen waa sharci xeef ridistiisa farmaajo iyo madaxweynaha iyo wasaare la socdeen laakiin xalay farmaajo u tageen waxay yiraahdeen war wixii dhacay dhaceene ninka nagu soo wareeji khayr u tageen khayr wuxuu yiri ma jirto ninaan dhiibayni inaan wareejinayna ma jirto ruuxaas dowladnimo kuma hagaagayaan in 12 xildhibaan la soo qoro oo baarlama oo laga geeyo meesha la yiraahdo eelaboorka warqad laga geeyo oo faarax cabduqaadir iyo heblaay odawaa iyo maanta war adiga fiiri madaxweyne ra'iisul wasaare xasan sheekh maxamuud intuu joogay laba ra'iisul wasaare la bedelay abduul xiirane iyo saacid laba mar xasan mooshin laga keenay cabdiraxmaan cabdishakuur hadduu mooshin waday waxay ahayd in dastuurka dalka iyo sharciga la maro lagu saxiro laakiin maanta dadaa intay dadaa la dilay yaa loo raacanaa madaxweyne arrintaas ra'iisul wasaare yaa loo raacanaa sharci ma taageerina ama sharci darro inta yeeraysa ma jirto aniga waxaan rabaa waa sharci axmed cali daahir oo Etoobiyaan oo xirwaaliyaha guud ee qaranka ah waa munaafiq hal kalaam runan weligiis ma sheegin oo wallahi oo billahi oo tallahi waa idin dhaaranaay hadda koor anoo idaacad shabeel ka shaqeynaayo soo weeraray 10 iyo dhowr gaari lagu soo weeraray weligeena warqad xeer ilaalinta looma keenin oo godka jir oo lagu dilo maxaabiista lagu dilo axmed cali daahir ninka ku taamarayo waa yiri warqada u geynay oo been ah axmed cali daahir shalay anoo xirnaa been iga sheegaysay aniga seel kugu aamina inaad maanta itiraadid een cabdiraxmaan cabdishakuur warqada loo geeyay warqada maanta asoos xido asbayso waa been waxay ahayd ninkan waa nin siyaasi ah okay dowladda kale wax ka soo qaatay dhaxda rabtid qaab kale soo eeday laakiin inaad radio muqdisho ka sheegtid in si fashar ay la maro in boolis ay u tagaan hadii la soo qabanayo xataa laakiin ninka in la dhaawaco oo lix ilaalidiisa la dilo madaxweyne dowladnimo ma waa la isdhaleeceyn karaa
ولا سعنباني كرا موشين ولا كيني كرا ولا سككيني كرا مدحوينه adiga dalka kuma qabsanin xukun military waxa ku qabsatay xukun dimuqraadi ah waa lagu doortay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdiqaadir Cusubli iyo Cabdu Argeysi ay ku jeedeen adeerkooda Xasan Sheekh ay adiga kugu shubeen codka waa nimanka shil codka kugu shubeen aday ku taageereen aday ku siiyeen way ku taageereen Cabdiqaadir Cusubli wuxuu maanta yiri arintaas ma qaadan karno wax la qaadan kara maaha nimanka sharciga ku taageero way Cabdiraxmaan Cabdishakuur asoo in adeerkiis u jeedo Xasan Sheekh Maxamuud wallahi bilaad uu kugu shubay adoo codka ku siiyay Cabdiqaadir Cusubli abgaala wasangili asoo u jeedo in adeerkiis Xasan Sheekh ayu adigu ku codeeyay Cabdu Ali Geeso Ciisa asoo u jeedo in adeerkiis Xasan Sheekh Maxamuud ayu adigu kugu shubay si dimuqraadiyada lagu doortay adduunka madaxweyne waa la isdhalay ayaa Mareykan ka timid Mareykan qeyr Norway ku yimid qeyr wax waalaayo waalay aan la yaabana war qeyr Norwegian tahay madaxweyne Soomaaliya Amerika qeyr Yusuf Waal qeyr waxa ay kaga dhigantahay bursiga laga tuura war waligeeda rasaaran naqan jiray waana baxaysa birito sifa Allah subhanahu wa ta'ala hadii qofka la soo xiraya lagu soo xiro sifa sharci ah sifa sharci ah war ani waxa isla ilaahay maanta dawlad fiican oo nin Norway ka yimid nin Mareykan ka yimid wixii la sheegay xamar iska caadaya timide war ani iska hadlayna xamar iska imaadaan rabi hadda ma dictatornimo soo noqotay ملس دلا ملس حرا ملس دباتينا هذا واحد مدحوينه ما فعنه يا لقوال مدحوينه والله بالله طلع خير جرو كاريدا خير waxa u daran bis kursigaas reer zaarnimo maanta waxay istaxilwaanada la socdo dhan khayr way ka baxeen waxay yiraahdeen habarta u sheeg muslim ku aragti dhageele dhagdheer ilaahay kuma samadiiday Cabdixakiin oo wax taaliin xillibaanada dhan khayr la socdo dhaay ninkan hawiye way hal dhaafo xaq u leeyahay war hawiye tahay reer zaarnimada waa leedahay xaq u leedahay laakiin inaad sifo sharci daraa dadka ku weerartay xas ala khayr oo atraadin xasam ala laga soo qaado birit in lagu bedelo laga yaabaa saabir luga iyo xasan ala labadina ugu dhawaay oo rasaarnimada ee sheeg la siinaayo xasaanada in laga qaada rasul wasaare sax ma aqlina ma cilmina ma dalka wallahi burbur oo horseeday oo billahi madaxweyne rasul wasaare dalka burbur oo horseeday hadii dalkaas uu burburna adin rasul wasaare naqamaysid madaxweyniina meesha ma joogay labadii meesha ka baxda dalkina burbur u gala yaan laga shaqeyn dalka inuu burbur galo qofka idinku awoodo in si sharci ah ku soo qabataan yaan xoog loo adeegsanin qofka lagu soo qabto sifa sharci ah qofka la soo eedeeyo laakiin sharci darro waxay dhashaa sharci darro waxay dhashaa sharci darro waxay dhashaa burbur waxay dhashaa dhibaato dhashaa waxa arka ku badan oo soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur dagaalamay war sharciga dalkaba ma qabo xilli saqdhaxa qof muwaadin in gurigiisa la aado warqad loo geeyo وقلت قف موادن شرعي دلك ما قب حركه عقابته Soomaaliya ma qabo qofka dambiilaha war habeenkii lix saac beenimo looma geey karo warqad waa inaad maalin aday u geysaa qofka waa muwaadin waa inaad maalin aday u geysaa laakiin qeyre rasul wasaare inuu yiraahdo qofkii mucaaradka sida al-shabaab lagu diraa ma soconayso dictatornimo niyo ma soconayso wallahi oo billahi oo tallahi Soomaalida madax adeega ka batay inaan xoog lagu xukumi karin xoog wallahi lagu xukumi karo waxa lagu xukumi karaa xeelad iyo aqli iyo sharci anigu waxaan taageersanahay nidaam walba sharci ah qofka in nidaam lagu soo eedeeyo qofka in nidaam lagu xiro laakiin habeenimo guri islaamada ku duula barra lixda qofood barra wareey waxa la sheegay askarta meesha joogtay in lixdaba la toogtay oo aysan dagaalamin lixdaba waa la toogtaa liin barra ayka dhishiika isuug iska dhiday maayna war dalka dhishiika lagu maamuli karo dalka al-shabaab oo aragteen sida dadku u laayeen midkii hadlaa bash ki inta fiiriyo bash way maamuli waayeen dalka wala nacay war dalka lagu maamuli karo xoog dalka lagu maamulo sharci madaxweynaha wuxuu ku yimid sifa sharci ah rasaaraha wuxuu ku yimid sifa sharci ah golaha wasiirada waxay ku joogaan sifa sharci ah sharciga cid ka sareyso ka weyn oo ka xoog badan oo ka sareysa ma jirto sharciga cid ka Cabdiraxmaan Cabdishakuur kama xoog badno khabiirkiisa dhan hada isku tagaa wallahi sharci ka xoog badneen Soomaaliya waxay heshiis ku tahay sharci waxa lagu jawaab sharci laakiin sharciga hadii la diido oo sharciga la burburiyo dawladda ayaa burburaysa maantana burburay baashi taagan tahay
haddii dowladda ay burburto maanta cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qabiil iyo reer ma burburinine sharci darro madaxda dowladda ay ku dhaqmeen ayaa burburisay sharci darro iyo qalad madaxda dowladda ay ku dhaqmeen ayaa dalkii burburisay taas in la ogaado waa ogaaw war qof walbo adigu ku anfaca sharciga aniga cabdiraxmaan cabdishakuur waa la xiri karaa wallaahi oo bilaahi oo tallah haddii sifa sharci loo xiri lahaa inaan ka hadli lahayn oo xeer laalinta ay soo aadeen leed waana loo soo jiri lahaa cid ka hadli leedo habar ay dhashana ma jirto qofkii ka hadlana dowladdiidu naqan lahaa qofkii ka hadla wallahi dowladdiidu naqan lahaa oo bilaahi inaan dowladda rabin oo dowladda socon naqan lahaa laakiin talaabada lagu weeraro lix askari lagu dilo 7 saxabeennimo la weeraray oo dastuurka dalka khilaafsan oo xeerka ciqaabta Soomaaliya khilaafsan ma soo dhaweey karno lama taageeri karo waxaan ka diga oo aan ku baaqa wixii dhacay way dhaceen haddii cabdiraxmaan qalad u lahaa qaladka weyn la sameeyay waa in cabdiraxmaan cabdishakuur la soo daayaa haddii dowladnimo ay jirto soomaalinimo ay jirto islaamnimo ay jirto haddii kale ilaahay baan ku dhaartay waa idin kaaraya in ilaahay musiibada ku rido war khayrow horta adiga musiibo ku aragtay dalka meel xuna ku wadaay ka soo celi meesha ku wadi war meesha khayrow dalka ku wadid ka soo celi war cid kula dagaali karto wallahi wasaaradnimo ku diidi karto malaxaqa u leeyahay laakiin si fiican wadanka waa inuu maamushaa laakiin xooga adeegsana war xoog Soomaaliya uu ka dhamaaday sharci la rabaa aniga haddaan qalad sameeyo sifa sharci lagu xiro waa haddii maxamed hadii fiirsanay maxamed doonta oo qalad sameeyo sifa sharci lagu xiro waa aasha agolo dalmaag joogto haddii xamar aad qalad ay sameeyso sifa sharci ku xir laalinta soo eedeyso maxkamadda warqada laga soo qaato waaran ah qofka la xiro laakiin xooga adeegsana in hada boqol mar waa idin sheegay wallahi billahi ta'ala janal aydid oo ras asar ila ras kamboni qabsaday adalka xukum maamuli way ربنا تامس بين ورا شباب دلك حكم معمول ويس ورمحمد سيد برو كويلو سنه هيستي او دستورك دلك لا علي دلك حكم واي waxaa muhiim ah sharci war ka fiirsada talaabooyinka qaadaysa waa talaabooyin dawladnimada burburinaayo biritan oo idin aysanaysa oo wallahi hadii san dawladnimada ay ku burburto kulligiin wax wasiirada ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada Mareykan Norway كندا كل يوم الدعوينا والله ولا الدعوينا وبالله ترى Soomaali way dacweynay maxaa yeelay hoda ku rideen idinka ugu jiraysan Xashaq Maxamed waa ka jiraysan team baati Norwegian Canadian UK Mareykan kullu ma naas ka imaadeen aniga Belgium jooga aniga qof Belgium jooga xamar ugu ma dhibaateen karo maxaa yeelay Belgium ka ku dacweynaa Brit ilmihiisa joogo xaaskiisa joogo ay ka dambi loo saarina وكريمنال حاسس الشيخ محمد لكن وحده هيستمر اسك سocdo باسبور aan haysano dibadda aan ka imaano laakiin kulligeen min wasiir ila madaxweyne ila khayra ugu saaran oo wallahi hadda waxaan joogo markuu soo daayno dacwada ku furaa khayra ka dambe farmaajo qofka ka dambeeyay Mareykan ama Norway dacwada ku furaa ninka uu dhibaatay uu dhaawacay criminal xabsi idinka ugu sahlan war xasan sheekh maxamuud waligiis dalka aan ka bixino baasaboor ajnabi haysan oo European iyo Mareykan uu dul qaadan jiray dulqaad mooshin hadii la keeno mooshinka hala furfuro imaaraha sheegtay ilaahu ma Mareykan wada mooshin kala furfuro dawladda tiin aqli adeegsada cilmi adeegsada siyaasad adeegsada ka hortaga mooshinka bixiya waxay bixinayaan laaluush bixiya lacag bixiya kala furfura aqli iyo cilmi iyo adeegsada laakiin xoog xal ma sharciga maxkamadaha adeegsada Umar Cabdishiid Boosaas soo jooga hadda waar u jira Umar waa kasra waarinkiis xasanad in laga qaado laakiin Umar Cabdishiid elbar ku soo dagay asoo aqalka sara waa qaadne dawladnimo ma wallahi billahi talaw idinku taageerayna xasanada ka qaadaan oo maxkamad la geeyo laakiin in xoog qofka lagu muqooniyo wallahi billahi talaw idinku taageeray dawladnimo ma Soomaalinimo ma dictator tahay dictator Maxamed Said Baraatay dictator على شبابته دولة ديلته دولة نمو مرتد صومال نمو مرتد وحاربتا دالكاس إن لو كلا شرعي ياسين وكسلام شرعي وإن ددك اسمين وإن قدرك شنبقلات لو قسمع قفك سوء إلي
maalin caddeey qodobka 500 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 6 maqribnimo ilaa 6 habeenimo qofka muwaadinka eedeen looma geen karo qofka duu diido ciidamada booliska soo qabanayaan nabad sugid ma soo qabanayaan war adigoo si sahlan wada si sahlan awooda oo reedi muqdisho ka akhri kara hana uu koro ku salaamaashay reedi muqdisho dhig kara xiraalii Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa la soo eedeeyay xiraalinta hadanaay waxaan ku soo eedeynay inuu lacag dalal sheegay qad inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxkamadda imaw markuu imaado xir laakiin la inuu adila barra dawladnimo diidan tahay qaran dumisa tahay sharci dara ku socotaa dawladnimona ma wacaas wax dawladnimo ma ah Soomaalnimo ma ah idinka dambiiliyaal oo xal lix qofood dilay cidii wararka amarka bixiso lix qofood oo Soomaaliya ku maqan gacan ku dhigile dambiila tahay dambiile gacan ku dhigila tahay dictator tahay dawladnimo maragtid waxaan nagu celinaysaa burbur iyo dagaal iyo waxaan nagu celinaysaa meel Soomaaliya ka soo tagtay Soomaaliya dhan way ku nacaysaa markaas Soomaaliya dhan way ku arkaysaa war dawladnimada aan soo noqono war Cabdiraxmaan Cabdishakuur iska soo daa maanta idinka qalad weyn sameeyay lix qofood dhiig baa daadaysan dhiig dambi la galo dambiga ugu weyn waa dhiig qof muslim loo daadiyo dambiga Ilaahay laga galo shirkiga marka laga soo tago dambiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga galo waxa ugu weyn dhiig qof muslim loo daadiyo war lix dhalinyarada dishay muslim bar oo aan waxba galabsanin war qof baa dhaawac dhiig baa daadaysan qof baa dhaawacday dambi weyn baa ku jirta Ilaahay u soo noqdo Ilaahay u tooba keen sharciga dalka dumiseen dastuurka lagu leelay sharci dara waxa lagu weeraray waxaan idin leeyahay sharciga dalka loo soo noqdo khayrow waxaan ku leeyahay dalka meesha lagu hogaaminayo way qaldan tahay war golaha wasiiradu arinta aan laga hadlo war Cabdiraxmaan Cabdishakuur xuriid salasiyo waxa qofku waxa uu dana dalka ka bax baarlamaanka amgusina ka bax dalka ka bax maxkamad geey wala musaafiriin hebel musaafiriin maxad u dhaawacay maxay lix qofood u dilay wax faham horta Soomaaliya wax fahma kuwa caadifada wado qabiilku wado qeylnaayeen waxa idin leeyahay sharci darada dhishaa hadda qeyr mursalnimo ku taageeraysay xasan macalin waxa la yiri xasanada laga qaado mursada birinta xildhibaano waxa arkaysaa madaxweynaha kureero Mariixaan oo xilka laga qaado war qofka mursado sharci daro ku taageeray qeyrow waxaan ku leeyahay xasan macalin waa mursade qof ka nasabsan oo ka fiican oo ka afgaaban oo ka asluub badan xasan macalin lama arkin xirlaalinta warqada soo saartay waxay tiri waa in xasan macalin xasanada laga qaado sharci darada mursade taabane hawrgeeda taabane abgaale taabane sheeqaale taabane mujartane taabane telefoon ay soo gal raaqda sharci darada waxay taabanaysaa qof walba Soomaali ah qabiilku raba ha noqdo qof walba Soomaali ay taabanaysaa ay sharci darada aan diino aan aadno sharci iyo dawladnimo wixii dhacay waa in laga dhiibiyo fadlan si shargareey aniga waxaan ka hadlayaa waa sharci fiiri ma aha taageeris shakhsi waxa ma tarayso Umar Cabdishakuur ku soo socota in sharci daro garoonka lagu xiro asoo dambiile in Umar garoonka laga qabto qalaf sharci ma taageeri karaan ma taageeray hada sharci daro lagu xiro xasanada ka qaad hadda maxkamad keen Cabdiraxmaan sifada ku weed waa sharci daro kuma taageeray dawladnimo ma qaliil binu shiiq oo fiirsanay sharci daradaas lagu xiro in adeerkay ayaan geela lagu xiro oo waxa lagu xiro qof walba lagu xiro sharci darada هذا اللي قحرا ورق شرع الدرب ما نعنفعه وحنا نعنفع أي شرعي كلا دنبان يدور النمو شرعي كلا دنبان يدور النمو شرعي قدرت كنا أسميهين وأنا نجيب عن أسمنا وأنا وشرعي أنا مدحوين أنا أسمنا مدحوين هو موادن أنا موادن أهل مدحوين أنا دعوي كنا الرا أنا مدحوين وريا في مراكن كترام موادنين تمراكن وحكي سمينوين أي سؤال أي go'aan u soo saaray diida dawladnimadu waa inay sastaay madaxweynaha mooshin laga keeni karaa ra'iisul wasaaraha wala tuuri karaa in mooshin laga keeno boqol soddon indho waxa uu diiday in lagu tuuro ra'iisul wasaaraha baarlamaanka ay ka shal ku ansixiyay xasanada xasan macalin qaal saab luuga war ma ah ra'iisul wasaare qofka diido oo in qadiyo ala soo xiro war ma ah Cabdiraxmaan suldaanka Ismail war ma ah adiga qofka ala soo qabto war qofka xir dalka dawladka دولة أدرك كا لكن قفك الدنبيلة كحر صفة شرعية كحر
sifa sharciya ku soo daa هو قاسم حيرك عقابة الصوماليين هو قاسم دستور كدلك أديك شرع أو دارت كتاب الله مرة ماشان كتاب دستورك وقال له قاسمه قفك قائنك أو توقع حداد قفته وانت سفر شرعك صحيح لكن مواد قولي صورته والميس وديفه جو 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 دول النيوم معه وتستترنمو صومال النيوم معه وأرحن درو ضد نمو معه والضعف نمو هرو صعد معه ودبو دع هرو صعد معه ودبو دع ننكر مد نمو معه والضعف نمو دول النمو معه واخر انتمس وحسب يسمح في عن معه إله إذا كل دار شيء هذا حاب شكر حريته السعودية حريته السعودية دخلتكم على تنسوا دعويه حر لا أنت ترى شيء يعني كدقينا واكاس نكاس ببلك ومده شيء سوق ودلك مسافري ورأدي قد دولود أنا واحد كل شيء واغلط رزاري هذا حويني وزير أنا واحد يدين شيء والشرع قد دلك حرك عقابة صومال عيني له دستورك واحد واغلط سبحان ما شرف ما كرام ما الدولود نيو أنا دقلي يعني دولود اللي بربرين والرجل زاري والمدح وين والله ولو قلد بالله وطلاق الله كجتا اسمه قد اسمه قد ضبك قلداي هذيك الشر سكل سوني له لو سو دورتي سكل سوني له برلمانك او هانو اد عيس كل بيوك سلامه سكل سوني له برلمانك او هانو ولو قرب تاغي واسعون لكن حوق جوج حوق وحبوب دمياه حوق كلسون درو كينا حوق wax lagu muqooniyo adduunka ku arko Soomaaliya ku aragtay keenta dimuqraadi Ismaaciil weli waa ku salaamay dimuqraadi bangax dimuqraadinimo Soomaalinimo ana amal abjinta barnaamij aan kasmay waa aragtay wallahi aniga marha imaaraat jinni qashar ima soo galaan laakiin Cabdi Shakuur siyaasiga Soomaaliyeed si sharci dara lagu weeraray dawladnimada la burburinaya wallahi billahi tala dawladnimada qatar ku jirto xaalad qatar lagu jiraa cid walba kugu taageertay leel caddi oo salaama cid walba kugu taageertay iyo wadan walba dawladda ku taageertay intaas waxay taageerayaan sifa sharci dawladda lagu burburinayo waxay taageerayaan sharciga Soomaaliyeed dhigatay oo lagu heshiiyay in la burburiyo waxay taageerayaan oo wadamadaas ay taageerayaan dalka inuu kala tago ilaahu mu Mareykanku ku taageero madaxweyne رجل جاري أو إنجليزي عندك تاجران خيرو نعس باطة وعم قريت خيره واحد ما فهمت بابا رجل جاري ما الله صعدا لا وريح حسن الشيخ محمود الله ما بوشين لقى كان حيرا يساعد على طول رجل جارها وردل كان مع الله وحلقنا قلا ولا قتها تاريخ في عنك قت حكى قتجين هذا الشرع قدومي يدك يا شرع كل دمي وبابا أنا عم شكورا وررت ولا ورري لا حفظ على الدلم حكى الله بريت إن وررك الأولاد بري إن واحد عن دول النمذجة بربريسو دول ما حكوا جرتو ماشي الله قلنا قناع يهديكو ورمع وحاس دول كان وكسب بحي بربري على هذا دول كان وكسب بحي لباتو يجاجو يفقري دول كان وكسب بحي إن هذا وجه قفك يقبل له قدر برا قفك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ترى dalkan Soomaaliya wuxuu ka soo baxay in dadka ay isku awood sheegtaan dalkan Soomaaliya wuxuu ka soo baxay in ilaahay dadka uu ku sallado al-shabaab oo maali ilaa keen kooda aqoonta la dilo dalkan wuxuu ka sii baxooyaa cuquba iyo dhibaato oo dalka cuquba loo horseedin war wixii lagu heshiyo sharciga ah haloo goosamo dawladda 4.5 ay ku dhisan tahay waxa maanta qeyra ka soo horjeedo oo qeyra diidan وحلبانadii shalay taageeray oo dhaay qeyro waa sax inuu kursi ku fadhiyo u baxtay ay kamid tahay ugaas dhagagel uu kamid yahay telefoonada dhibay ugaas dhagagel uu kamid yahay dagdeer uu kamid yahay Cabdi Bidaar xilbaanadii qeyro u oleynay waa maanta wax sharci darada diidan dalkina sharci darada loo horseedin wixii xal dhacay raalgelina laga bixiyo Cabdi Shakuur waa muwaadin sifa sharci darada lagu weerar la soo daayo kadib soo eeday مكة بحي لحد ويلو لدري مرة بني يصدقين قف إلا وير لما يتبنح اللي بنا ورقل لقد دي جمال
waxay sii dhalanaysaa waxay sii kicinaysaa xiisadda emotionka iyo waxa socda xildhibaanadan alla hadlo war hal yiraahdo dan shisheeye intaan aadi lahayn dan Soomaaliyeed aan aadno waa iga talo waa iga baar waa iga dardaaran laakiin waxa u jeedaa shalay haddaan ilaahay ka nuurta cabdi ilaahay ku xifdiyo ku salaam nuurto igu salaam wiilka adeerka waxaan idin leeyahay dalkan waxa u jeeda aniga oo indheega shanta ah wallahi ah ku badan meelaha ka hadlay waxa u jeedaa moogta wallahi waxa u jeedaa dalka inuu burbur ku socdo wallahi dalka inuu burbur ku socdo wallahi waxa u jeedaa dalka inuu burbur ku socdo dalka burbur yaa loo riseeyay hala joojiyo awood muqoonsiga awood la adeegsanay hala joojiyo wax walbo dhibaato ah Soomaaliya loo soo bandhigo hal yiraahdo war waxana socda war xasan sheekh oo kaale ala shir madaxweynaha war sheekh shariif oo kaale nala arag waxaan nala arag waxaan wadamadan haysta waxaan hayeen war Soomaali ala la hadla yiraahdo wadamadaas arab dalka inuu burburiyo xir safaaradaha ka shakisid adiga fiiri adaa abd ku wareer safaaradda imaaraadka furan ma xirtid ra'iisul wasaare safaaradda imaaraadka ma la xiro golaha wasiirada ay ka fadhiistaan ما الحرو سفارة الإمارات عبد الرحمن أوكي إمارات أنا عكس سفارة الإمارات حر حتى كويس مية خير ولا شيء إن أدرتيس لا حين حاسكيس هبل إمارات كتجن واحد صور مع الدولة دي وأنا معه أي مواد كوا ويرتي سشر إدراك كوا ويرتي ولا حري ما قولها وزيرة إن فلسطين الحرو سفارة الإمارات إمارات إذا صوت إيه هي صوت الصومالي ده أو لا إمارات تبر إذا الإمارات ما لقى سوور الجيو ما الله شيء الصومالي الإمارات عقبات ده يكوتها محل قرب أنا كموادك أوكي ولا سوء ديك سدي يا سوء ديك سدي إمارات سفارة ما حرت سفارة ده ما عنك أوكي صومالي كعلك تاي شيء ونقول شيء توك باتاي إمارات حرت سفارة ده علاقات إمارات كوننجر كم صومالي وكعد كاي وهو تشجعنا أوكي صومالي الحترة يعني يورتا ذكر يوجي يعني يورتا مقولاشة ياو إترا استروك سام ياو ترى حيوانك إلهي وقوم مساكيسن مركا قول كوسو حرتد أو أقرع مركا دم كوسو جيسنا بالعاو فيني عرواكاس يعني يورسو قول كوسو قرأ إندهك على بحي مركا دم إندها أيك على بحيسة إندها قنبلف ويان يورت قوم مساكيسا مركب واحد ودان يان يورت أيها بصاص سميسه محاد لينسا شرع الدر ولا سمي محاد لينسا قفك شرع الدر ما أنتم نادك والإمارات كسحر سفارة دير ورمدا حويني ورقلوا وزيرة إلى إمارات كسفارة دير قفك اللي ودهم شرع لو قابته شرع الدر الجوجي لا شرع الدر دولة بالبريسة إذا كعاود دولة بالبرية دولة نمو رزارة بالبرية دولة نمو قلها وزيرة بالبرية رول مربطان بن هدان رول اسكو شاقين أو والله يا بين عصر هدان إسلام والله وحبا اسكو جيجيرا دولة لأنه صد العوى شرع الدرع على سمينا شرع الدرع بحالو كتاقيلا وريا شرعي لو قاسمو والله عندي شرعي قد ديدنا عد وفتحوا المراه شرعي قاعدان ديدنا والله بالله الله عد كاغا فتحوا المراه ميل والبا عبدك بلا ونسا ميل والبا لاسك ديلايا عد كاغا فتحوا ما جرتو marka telefoonada ay wareerinay waxa ilaahay fadlan si share gareeya aniga waxaan ka hadlayaa waa sharciga iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo dastuurka aloo hogaasamo maanta hadday wax dhacaan madaxda dawladda mas'uulka ah maanta dawladnimada Soomaaliya hadday qalqal gasho madaxda mas'uulka ah maxaa yeelay sharciga la dumiyay sharciga la burburiyay sifa sharci darro ah ayaa dad lagu weeraray sifa sharci darro ah ayaa habeenimo 6 saac habeenimo dad la laayay dad la dilay sharci darro digdig loo leeyahay halaga joogo sharci darrada qof walba oo Soomaaliya oo sharci darro taageeraya hada aragtidna wuxuu rabaa xaraan iyo xoog u rabaa aniga ma dhahayo qabiil hebel la dulmiyay siyaasi Soomaaliyeed la dulmiyay siyaasi Soomaaliyeed oo muwaadin oo musharax ah biri madaxweyne naqan kara ayaa la dulmiyay si fashal darro ayaa lagu weeraray أنا أتعاجب إن هذا الكلمة ولا شيء ما قال المعذر مني لكن هو موادن أنا جوا إيدي بريت إنسان سلوك سماه موادن أنا قد اللي حراي سفشر يقول حدا إيدي ليس تيرك يجي سفشر سفشر خفوا الدليل
naagu kufsaday asoo qabo sinaystay dheh asoo ii sheeg diintu ka baxay wax ugu dil laakiin si sharci darro ah habeenimo inay ugu soo weerartid oo si sharci darro ah igu baabiisid sax ma ah dowladnimona ma ah dadnimona ma ah soomaalinimona ma ah waa baaba waa dowlad la'aan waa soomaali damiir xumo ha laga joogo sharci darrada waxaa muhiim ah soomaalida inay ka joogto dowladda ay ka joogto عمر عبد الرشيد سفر شرعي كوح محاس حسن معلي كربتا اللي كان مرصدي ونك وفي عادلك محاس بالروح يكون معي ولا جيس أنا هاللي وحين الله يه لو إلهي إيمان كان نقلي إلهي نصوغ صومالي وحين الله صومالي وحين الله شرعي عن سنانو شرعي الله سنانو صومالي وحين ماشي عن دقي وعدالة درة نستعشق لما أكو سلامي صومالي وحين ماشي عن دقي وعدالة درة أو تشيكشو شرعي عن له قاسمين هوي مساكين لو سيناي ويلل دليرو ان لا qabto si sharci daraa loo tooganayo oo dambi aan leen loo saarnayo la jirdilaayo uqubadaas aan haysata ilaahay aan ka bari in Soomaaliya uqubada uu ka saaro dadkana uu tuso wax walba sharciga inuu ka fiican yahay wax walba sharciga ka fiican wax walba sharciga ka wanaagsan ee Soomaalidu waxay la dadka sharciga ku hogaamin lahaa Soomaalidu waxay leedahay dadka sharciga ku hogaamin lahaa leedahay Soomaalidu waxay leedahay dadkii ishay هاي لها وقامين لها وقدام بين وحكو باقا وانكو قلنا وان لا يهي فري عبد الرحمن عبد الشكور فري عبد الرحمن عبد الشكور فري عبد الرحمن عبد الشكور إلهي سبحانه وتعالى أنا عقبري إن دك سوماليد وسوغو وعدالة الشرعي كلا دمين تقدسو رجال ما أنت جو يكون بري إيمان دوننا إن أوتسو إن وحول بابا الشرعي الله مرو شرعي درادة لسك الراف وحول بإن شرعي الله مرو خوفوا بإنه شرعي كسرية قيري عبد الرحمن شكر الله مقدم وشرعي أسميين حسن معلي عبد الرحمن شكر الله بدنا مرو صداح واي الصومالية شرعي أسميين إنه خير تسأل منه واي تسأل آمنه واي لكن أنا شرعي درادة كوكو تاجيري قف صوماليا والضمير لنا شرعي درادة كوكو تاجيري أبو أجيد إنا ورقات سو سارتين أوريدي مقدسو أكتر عبد الرحمن شكر الله محكمة دي ماذا كذب أحرتي waxa u weerartay waa qalad waa sharci daro ala dawladda burburiyay idinka dawladda dudumiyay idinka xaaladda Soomaaliya khatar gelinay waxa laga naqdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka bari dhamaantiin inuu xifdiyo Najiib Cusmaan ka hay'adan ku salaamay boqorad banaadir Ilaahay dhamaantiin aan xifdiyo mo حامد وكو سلامين عليك إلهي حفظي إن شاء الله إلهي بركيه إلهي سبحانه وتعالى كوي حق كل انت إلهي نقدقه إلهي سبحانه وتعالى لما أنت أنا أمان سدو قفل بمراد كلية يعني إلهي سبحانه وتعالى أسيه لما أنت الشرعي يكرا دنبين تدلك عنه قاسلنا إن شاء الله إلهي حفظي وإن سلام ميرو البؤجوكتان الحمد لله هاي لما أنت إلهي أنه السوق وحي عن صحي أو عن سيبي وحي أهاتي حق إلهي وحي عن قلدين نفسه دي الشيطان وحي الله لما أنت إلهي حفظي نورته إلهي يقولك أذلك أنه بركة نستحش قبل إلهي سبحانه وتعالى وحي عشاء كسي عاف ماضي وارا وطامة وحي كفر حديث إن شاء الله نذر أذلك إلهي حفظيه نجيب وحي عشاء إلهي كوسا فرتوشينو إلهي حفظيه أنت وحي الله إلهي حفظيه إن شاء الله تعالى إلهي بركة نستحنا فتحة أمرا وحي عشاء إلهي وسالة نستحش قبل عاف ماضي وارا إن شاء الله وطامة إلهي يذكس مركو عين سلامة يا باي باي شرعيك إيو كلا دمبين تدلك أنه قاسلنا madaxdana ay ogaadaan in nimanka Soomaaliya maamula inay sharci darro ku dhaqmeen waxay ka yimaada ay ka iskala mas'uuliyadda ay ka aabalada ay ka leedahay sharci darro qofkii taageera al-shabaab taageera al-shabaab lagu diiday sharci darro lama taageeray waxaan taageeraynaa sharci cid walba sharci rabta ay kala dambeyn qofka aragtid inuu sharci kala dambeyn rabin waa qof tuuga waa qof qaa'ina waa qof rabo in dhiga dadka u banaysto waa qof rabo inuu hor loo socdo laakiin sharci waxa diiday rag maanta dalka haya ay ka sharciga diiday ay ka sharci darro ku dhaqmay haga tooba keenan meel fagaara hay yiraahdaan ninkaas waa la tuumay wala soo eeday waa siideen hadda waxa sameeyay laakiin sharci darro qaabka u dhaqan sharci darro waa muwaadin Soomaali waa siyaasi Soomaali xaq u leeyahay baarlamaanka uu dhaxgalo شلي هذا أسعد وسيم مدحوين أصلا إن أدرك الحسن وجود هذا كاجيلي ديمقراط دينمو أسعد وسيم عود كهل حكومة دارت ديمقراط دينمو
marka qaladka jira oo weyn oo la galay oo dowladnimo hala soco waad mahadsantihiin sii shargareeya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu